kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya qaramada midoobe oo cirra iyo Somaliland siisay fursad kale oo aqoonsiga iyo tallaabooyinka waaweyn ee la qaadayo la xiriira. haddaba muxuu yahay qorshaha culus ee degdega ah ee la qaaday qaramada midoobe maxay damacsan tahay? Shariif Sheekh Axmed oo sheegay inuu ka badbaaday dil toogasho ah iyo weerar lagu qaarijin rabay oo filla Soomaaliya ay soo diyaarisay. haddaba xasan sheekh maxamuud eedeyntan culus ee hadda uu wajahayo iyo sidoo kale beeshiisa oo si weyn u taageertay Shariif Sheekh Axmed kala jabka culus ee hadda yimid qorshihii ugu weynaa oo socda dani oo garowe lagu hareereeyay qorshaha filla Soomaaliya oo si degdega markan loo ogaaday Trump oo xayiraad ku soo rogay Israa'iil iyo Netanyahu. haddaba maxay tahay xayiraadaasi? wararkii ugu dambeeyay caalamka sidoo kale waa daawan doontaan, balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareyso, leeg saarto, meel fog gaarsii, qayb ka noqo saaxiibada inagu xiran ee hela xogaha xasaasiga ah iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adiga oo rukumanaya barteena YouTube channel. sidoo kale furo gambaleelka digniinta, aragtidada qaybta hoose faallada ama commentiga inoogu reeb. waa hagaaga aynu ku bilownay ee waa 25 bisha June. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi, adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka. markasul ihsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac. markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar, xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen, arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen, qaramada midoobe ayaa waxa ay cirro iyo Somaliland basiisay fursadii ugu dambeysay ee aqoonsiga la xiriirta, iyada oo fursadani ay tahay mid waqtiyadii la soo dhaafay la ogaa inay ahayd dood weyn oo culus oo taagna. qaramada midoobe ayaa ka shaqeynaysa qaadista tallaabooyin waaweyn iyo ka dhabeynta go'aanada aadka u culus ee loo qaadayo dardargelinta qorshayaasha ugu dambeeya, iyada oo tani ay qayb ka tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee loo qaadayo tallaabooyinka aqoonsiga la xiriira. marka la eego dooda taagan iyo arrimaha isdiidooyinka abuurayay waqtiyadii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwa aad u culus, waxaana la rumaysan yahay in tani ay qayb ka tahay isla qorshahaasi oo waqti badan soo jiitamayay. mowduucyada waaweyn ee la isku hayay iyo dooda abuurtay in uu gaaro heerka ugu sarreeya mowqifka siyaasadeed ee dhinacyadani ayaa waxay ahaayeen kuwo waqtiyadii la soo dhaafay si weyn u soo ifbaxay una soo jiitamayay. xukuumadda cirro ayaa qaramada midoobe hadda ka helaysa taageeradii ugu weyneed, iyada oo ay ka dhigan tahay in qorshihii ugu cuslaa loo qaaday tallaabooyinkani. waxaa tani ay mar kale dardargelisay dhacdooyin waaweyn oo aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo isbiirsaday, iyada oo ay mar kale xoogga saarayaan dhinacyadu sidii loo soo afjari lahaa isla tallaabooyinka aadka u cuslaa ee la isku hayay. qaramada midoobe ayaa mowqifka ugu dambeeya ee go'aanada aqoonsiga iyo dooda la xiriirta tallaabooyinka hadda la qaadayo intaba soo afjaraysa marka la eego sida ay hadda wax u socdaan iyo mowduuca ugu weyn ee la isku hayay waqtiyadii la soo dhaafay oo hadda noqonaya mid soo xira albaabada doodii hore u furneed. mowqif kasta oo doodaasi la xiriirtay iyo wax kasta oo hore u furnaa ayaa hadda u muuqanaya mid soo xirmaya, waxaana uu ka dhigan yahay qorshahan hadda ah kii ugu weynaa oo ay dhinacyadu ku soo afjarayaan doodihii ugu waaweynaa, iyada oo ay mar kale u muuqanayso in la dardargelinayo qorshayaashii iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa. qaramada midoobe ayaa mar kale sidoo kale waxa ay ifinaysaa qaadista tallaabooyin culus oo waaweyn, waxaana ay tallaabooyinkan u qaadayaan sidii loo soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqyada qaarkii oo lagu tilmaamay inay yihiin dhacdooyin aad u culus oo waqtiyadii ugu dambeeyay ay ka shaqeynayeen dhinacyo kala duwan, lana rumaysan yahay weliba inay tallaabooyinkaasi noqon karaan kuwo mar kale dardargeliya qorshayaasha aadka u waaweyn iyo sidoo kale go'aanada kama dambaysta ah ee lagu soo afjarayo isla mowduucyada waqtiyadii ugu dambeeyay aqoonsiga Somaliland la xiriiray ee la isku hayay.
Ciro iyo xukuumaddiisu mar kale waxay helayaan taageero lixaad leh, waxaana ka shaqeynaya dowlado waaweyn sidii loo aqoonsan lahaa, iyada oo ay u muuqanaysa weliba in doodii ugu cusleed ee la isla mari waayey waqtiyadii ugu dambeeyay ugu dambeyn hadda in ay meel yeelanayso, taasi oo ka dhigan in ay tahay doodo aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo abuuray xaaladihii ugu dambeeyay oo go'aanadan ka dhigay kuwo waaweyn oo diiradda la saaray, mar kalena ay heegan buuxa galeen dowladihii aqoonsiga Somaliland ka shaqeynayay. Markan haddii aynu eegno dhinaca kale, wararka la xiriira madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu markan qaaday mid ka mid ah tallaabooyinkiisii ugu waaweynaa, isaga oo kulan ka dhacay Muqdisho oo uu ka qayb galay ugu dambeyn shaaciyay in markan loo qaaday tallaabo khatar ku ah isaga, taasi oo uu halis ku galay nafsadiisa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu markan sheegay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo khatar ahaa dhinacyadan qaarkood, iyada oo ay mar kale dardar gelinayaan doodii ugu weyneed ee la xiriirtay dhaqdhaqaaqyada aadka u xooganaa iyo tallaabooyinka la xiriira tallaabadii ugu weyneed ee go'aanka markaasi lagu weeraray dowladuna ay qorshaysay ay markaa uu ku sheegay. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo uu ka qayb galay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay in markan doodii ugu weyneed oo la isla galay dhinacyadana ay markaasi ku doodeen, ugu dambeyn lagu soo hadal qaaday arrimaha la xiriira dhacdooyinka waaweyn ee diiradda la saarayay waqtiyadii ugu dambeeyay, taasi oo ka dhigan in uu Shariif Sheekh Axmed sheegay inuu ka badbaaday dil loo qorsheeyay, taa oo ah mid ka mid ah waxyaabaha adkeeyay doodaha waaweyn ee taagnaa waqtiyadii la soo dhaafay. Tani waxa ay muujinaysaa in ay xoogga saarayaan dhinacyadani sidii loo soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqyada hadda socda, balse waxa wararku ay sheegayaan in markan Shariif Sheekh Axmed uu banaanka keenay xogta la xiriirta in loo qorsheeyay dil khatartiisa xambaarsanaa, kaasi oo uu ka badbaaday. Shariif oo kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay soo abaabuleen si gaar ah beeshiisu, waxa ay markaasi hadda ku sheegeen in markan loo qaadi doono tallaabadii ugu weyneed ee la xiriirta dhaqdhaqaaqa looga hortegayo qorshaha Shariif lagu weerari rabay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaariyay. Madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu si cad u sheegay in la diyaariyay qorshe lagu weeraray hoygiisa oo la rabay in lagu qaarijiyo, balse waxa uu sheegay markan in ay tallaabooyinkani yihiin kuwa waqtiyadii ugu dambeeyay ay qaadayeen dhinacyada qaarkood. Xogta aynu helayno ayaa muujinaysa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu beeshiisa hoose u gudbiyay cadeymo muujinaya in la qaaday weerar lagu ekeeyay gurigiisa, kaasi oo ah weerar lagu qaarijin lahaa. Shariif ayaa waxa uu hadda u muuqanayaa mid ka hortegaya qorshayaasha socda, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku eedeeyay isaga oo la hadlaya qaar ka mid ah dhaqanka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo ay dumarka mudulood ku jiraan, dhammaantood hool ay ku sugnaayeen. Isaga oo hadal ka jeedinaya ayuu Shariif sheegay in loo qorsheeyay dil, balse uu ka badbaaday, haddana uu socdo mar kale qorshayaal kale oo waaweyn oo arrinkaasi la xiriira, isaga oo tilmaamay in halistu ay aad u badan tahay, mar kastana ay wajihi karaan xaalado khatar ah. Waxaana uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay qaadista tallaabooyinkan iyo dhaqdhaqaaqyadan halista ah oo uu sheegay in ay wadeen waqtiyadii ugu dambeeyay, iyada oo weliba uu ku dhawaaqay go'aanka ah in ay dhinacyadani ka shaqeynayeen waqtiyadii lasoo dhaafay doodo waaweyn oo taagnaase hadda waxa ay ku soo xirmeen in mucaaradka qaarkii dil ay ka badbaadeen, sida uu shaaciyay Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
markana dhinaca kale haddii aynu eegno Garowe iyo waxa ka socda Siciid Cabdulaahi Deni ayaa la ogaaday in uu halis ku wajahayo gudaha magaalada Garowe ee xarunta u ah maamulkaasi. Puntland ayaa waxa ay markan wajahaysaa caqabadihii ugu waaweynaa iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa iyada oo ay mar kale u qaadeen dhinacyadani qorshihii ugu weynaa oo lagu soo afjarayo tallaabooyin ka socday dhaqdhaqaaqyada ugu waaweyn ee abuuray maalmihii lasoo dhaafay loolanka. Deni Garowe ayaa lagu hareereeyay oo ciidan ka tirsan dowladda ayaa ku sugan halkaasi, waxaana filla Soomaaliya ay bilowday qorshe ka baxsan magaalada Muqdisho oo maamulada federaalka ah hadda ee dowladda hoostaga loogu tegayo xarumahooda. Horey waxaa filladu ay la dagaalantay Axmed Madoobe, dagaal qaatay dhowr sano oo soo jiitamaya 2 sano ee ugu dambeeyay. Waxaa xigay Laftagreen oo ay meesha ka eryatay, mar kalese Qorqor ayaa laga saaray Galmudug. Puntland hadda waa ay hareereysan tahay, waxaana ay dowladdu gaartay waqooyi bari Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyada oo aan si dhab ah markani u cadeen qorshaha xiga ee dowladda ay Puntland ka leedahay, balse waxa wararku ay sheegayaan in filla Soomaaliya qorshaheeda ugu weyn uu yahay inay gacanta ku dhigto qaybo kale oo muhiim ah oo maamulkaasi ka tirsan si ay u xakamayso dhaqdhaqaaqyada durbaba ka soconaya deegaanada maamulka Puntland oo cabsi xoogan hadda ay ka jirto, iyada oo wararkii ugu dambeeyay aynu helnay ay muujinayeen in dhaqdhaqaaqyadan ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa, waxaana mar kale tallaabooyin dheeraada loo qaadayaa qorshihii ugu weynaa ee lagu soo afjarayo arrimahan dooda badan abuuray iyo xaaladihii ugu cuslaa ee hadda taagnaa. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markan wararka caalamka, Trump ayaa la ogaaday inuu xayiraad ku soo rogay Israel iyo Netanyahu kadib markii dhaqdhaqaaqyadoodu ay siyaadeen. Telefishin laga leeyahay Israel ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu si tartiib u kordhinayo xayiraadaha uu saarayo Israel, taasi oo saameyn ku yeelanaysa howlgallada military iyo go'aanada siyaasadeed ee xukuumadda Benjamin Netanyahu. Warbixin uu baahiyay Channel 13 ayaa markaasi lagu sheegay in cadaadiska Washington uusan ku koobnayn Lubnaan oo kaliya, balse uu gaaray dhowr jiho oo ay Israel dagaalo iyo xiisado ka waday, gaar ahaan Gaza iyo xadka Lubnaan. Sida warbixintu sheegtay, hoggaanka siyaasadda Israel ayaa amaro cusub siiyay militariga, kuwaas oo qeexaya halka ay ciidamada Israel ka howlgeli karaan iyo meelaha laga mamnuucay in ay weeraro ka fuliyaan. Amarka cusub ayaa dhigaya in ciidamada Israel ay si xor ah uga dhaqmi karaan gudaha waxa loogu yeero xariiqda jaalaha ah, isla markaana ay ka jawaabi karaan halis degdeg ah. Hase yeeshee waxaa laga mamnuucay inay howlgalla ka fuliyaan magaalooyinka Beirut, Tyre iyo sidoo kale goobo kale oo ka mid ah dalka Lubnaan. Mas-uul sare oo Israa'iili ah ayaa kanalka 13 waxa uu sheegay in fariinta ka timid Mareykanka ay ahayd mid cad, taasi oo ka dhigan mid mar kale xayiraad lagu saaray dhinacyadan sida gaarka ah dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay u waday, iyada oo weli uu sii socdo tallaabooyinka qaarkood. Guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.